iga raal noqol alqaali dibtaan ku geystay maxkamad baan kula galay dhagaxaan baa kugu dhuftay cunto ma cuni jirin anaga nalama hadli jirin iyada marka bis ugu dhantahay wallahi jacayl horta waa soo arki jiray jacayl afka ka maqli jiray jacaylkii oo dhabaan arkay xamsana waa jacaylkii oo dhabaan oran karaa inankii oo waxba sameeynin oo aanu haysteen inuu dib sameeynayo ayaan gurigii dusha kaga xidhay qolkii gaadhigi baan ku xaysanaa anaga inantii saldhigaan tagnay askar baan nala soo raaciyay inankii qolkii ku xidhan baan furay taliyaan ugu dhiibay anaa u dhiibay ma jiro dhaawac iyo xanuun ka weyn midka lagu geysto waqtiyada aad jilicsan tahay waxaase mararka qaar daawo ku noqda inaad hesho cid ka garowda dhaawacyada iyo bogaha laga damqay ee lagu geystay bal sawiro oo maankaaga geli adigoo hortaagan albaabka inantii aad ka jeclaatay dunidoo dhan isla markaasina lagugu dhufanayo dhagaxaan jay iyo wixii la halmaala isla markaasina lagugu soo xidhayo albaabka dulqaadka noocaasa maxaa lagu micnayn karaa qaybteena caawa xiise gaara ayay leedahay فردوسي ولا ورينا ام تي في كسو دwow waan ku dhawahay walaalo ma santaa waxaad isku guri deganeedeen hoodaad isku guri deganeedeen bal qisada xamse iyo waxyaabihii aad kala socotay mararka gurigeedin ku iman jiray isaga iyo hoodo jacaylka dhexdooda yaalay waxyaabaha aad kala socotay bal xog naga sii walaal aad baad ma santahay MMTV waan ku dhawahay ninka xamse horta marka hore jacayl uu qabaynta kuma ogeyn oo maalintii ugu horeysay waxa dhacday inuu albaabka nagu soo qaraaco anaan qof waalan mooday isagoo aad u dulaysan kabada casa gashan dhar yaraws taga gashan kadib waxa dhacday albaabkan furay inankii baan ku warihay walaalo xugu wari inantii ma raba waxaan ku wari inantii aad rabtidee yaa tahay isku kala sheegno uu yaamsay anna albaabka markuu hadli waayay qofkii de kula hadli waayay qof waalan baad moodaysaa albaabkan xugu qabtay waan ku dhuftay meelahan buu ka dhacay kadib show meelahan baa inanka buurnaatay oo maan ogeyn maalimo kadib haddana soo noqday wuxuu guri walaalo maxad albaabka ay gudfatay oo maalintii la hadlay ugu horeysay hadal bayna ka naga dhaxaysay waxaan ku walaal qof aanad garanayno albaabkii ugu soo qaracay qof waalan baad moodaysaa ee nabarkii baad qabtaa aduu nabarkii show sii baabaayay marka nabar meelahan baan yar soo burnaatay oo albaabkan ka jaray isaguna albaabku kaabadu ku soo dhawaa kadib nabarkii markuu ka jaray nabarku soo burnaatay waxa jirto kale inankan habeennimadkii xunooy ma jirto salaan la sagaalada ayuu ma jiray hooyadii iyo reerkooda uu ma jiray way kaxan jireen saan u haysanayno inankii guriga la geeyin buu labadan bas saddexda soo qaraaci jiray gurigu soo qaraaci jiray badana naayin waxaan moodi jiray de inankan inuu waalan yahay ayaan moodi jiray showna karimo waalne jacayl baa waalay ana waxaan ogaaday inuu jacayl waalay xamseen maalmo kadib markii la xidhay markii cilaash la geeyay oo saldhigan dhowr jeer inanta u raacay xataa anu heer waxaan gaadhay inaan maxkamada u raaco si aan ugu soo marxaati furo inuu inankan gurigeyga dhamaan jirin oo khaatiyaan aanu ka taaganahay kadib markaan ku soo marxaati furay waxa dhacday maxkamadii baan laga soo daayay inankii xamsa la xidhay adigu dib badan waxay soo maraanba saldhiga macaan Harun baanu geynay saldhiga markaanu geyno taliyin ugu yiri inankan ma waalna ee jacayl baa haya kadib waxay sidii haataba inankii aanu maleynay inuu jacayl hayo aanu maleynay inuu waalan yahay show jacayl baa hayay markii dambe anaguna de qof caadi aan mooday aan dareemayno jacayl hayo heer waxa gaadhay inanta ula hadlan ku raado walaal kanuu ku jeceliyay u soo dabco sidii de in laga yeeli jiray la hadal xataa hadaana de qofka la hadlay koolka ka qabo inanta markaan soo kaxeeyo adu ay hadlaan waxay ku hadlaan ma garanay inay u tiriso in isagu la hadlo horta inankaas waan isku keeni jiray inankaasna uu ooyi jiray badana uu jiray xamso murugoon jiray anu markaan dareemay inuu xamso jacayl hayo waa la murugooday laakiin bariga hore waxaan haystin waalan yahay bal xamsi wuxuu sheegay inuu marar badan gurigeena tagay xaafadda qodo horta tagay kullu guri baa maalintii habeenkii waqti walba inta badan inuu halka joogo jiro waqtigiisa ugu badan ku qaan jiray bal arinta maxaa ka jira way jirtaa walaal waqtiga ugu badan gurigooda si aan ugu joogna anagu nala joogo jiray xanta xamsa dadku tiraa soo socon mu soo socon jiray waa qof mirkiis jooga moohayn oo inantan bay ku cadeed inantan buu koodhaya mid kale anagu heer waxaan u gaadhay inaan guriga soo gelino cunto ma cuni jirin anaga nalama hadli jirin iyada marka bis ugu dhantahay
markaa taas jirtay walaal inanta aad u sasabteen waliba adigu aad istirida maadaama inkii jacayl hayo isla hadlaan oo aad soo keento hooda dhankeeda baliyada jacayl ma ka jiray wallaahi horta qofka markaad arkaysid inuu jacayl uu dhankiisa ka jirayo marka kale isku mid maaha markaan anigu inanta aad baan iskugu dhaweyn walaalaanu hayn saaxiib baanu hayn gurigan ku wada jirnay oo walaashay baa guriga kula jirtay ana walaashay baan la joogo oo umushay kadib inantani inan jacayl u jeeda ma ahayn markastaan ku odhan jiray xamse lahada waa in abtigii xaggan geeya odhan jirtay xamsana uu dhibayo de waa kan kaa dul ooyay kula walaalay sasab markaa taasaa jirta walaal jacaylkooda maadaama ku aad goobjoog waxnaad kala socotay maxaad ku qeexi haduu jacaylka haddaan kula maanta qeex wallaahi jacayl horta waa soo arki jiray jacayl afkaa ka maqli jiray jacaylkii oo dhan baan arkay xamsana waa jacaylkii oo dhan baan odhan karaa xamse jacaylna markii loo bixiyeen ogaaday malaha idinkuna ood u bixiseen xamse jacayl warbaahintaa u bixisay welibana siiba adiga waraysiga keenay marka xamse jacayl baa magacaasi u baxay aduu maadaama markii hore aanad isan garanayn inuu jacayl hayo laakiin dib aad ka ogaatay bal markii hore aanad ogeyn kulle dhibaatooyinka iska imanaya shakhsiya dhibaatooyin aad sodhan karto xamse waad u geysatay ma xasuutaa wallaahi tii ugu darnayd been ma sheegayey isagoo inantii adu wax badan ay badan qasbeen ayuu malaha sidhi gacanta jiido kadib inantii baa qaylisay annaga inagu qaylisay anaa soo boodo qolkii baan ka soo baxay dhagaxaan baan qaaday quruur xamsaa ku dhiftay markaa taana xamsa iga saamaxay marna albaabkaa ku dhiftay marna maxkamadda xitaa saldhigaan inanta u raaci jiro berigii hore waxaan odhan jiray inankan u qasbaya inantan oo garab baa inanta siin jiray waxaa jira dhibaato badan oon xamse u geysanay saqdhi wuxuu noo yimi inantiina gurigay joogtay hooyadeedna way joogtay inantu waxay lahayd gaadhi feeroosa kadib feroosihii ay lahayd baa waxa dhacday guriguu yaalay xamse waa maalmuhu shilka gaadhiga gelin doono ayay ahayd kadib anaa inanta ay u qaylisay waxay tiri walaalii soo cararo qolkan ka soo booday kadib waxaan sameeyey inankii oo waxba samaynayn oo aanu haystay inuu dhib samaynayo ayaan gurigii dusha kaga xidhay qolkii gaadhigii baanu kaxaysanay anagii inantii saldhigaanu tagnay askar baa nala soo raaciyey inankii qolkii ku xidhan baanu furiyey taliyaan ugu dhiibay anaa u dhiibay kuuri taliye inantan dee gurigaanu ku wada jirnaa dhibtaasay qabtaa badanaa qayladooda walaashayna waa umuul ma seexato eedda naga qabo inta aanu dil ka iman bartaan markaa taliye markaan furiyuu dhiibay sidii bay sheekadii ku dhammaato xamse waa la xidhay markii dambe gadaalka ogaaday inuu inankani jacayl dhab yahu jacaylku dee dhab ku noqdayna aniga dhankaan usoo jeestay labadooda isla kulansii inantuna markaad u geysi waxay ku odhanaysa de aniga walaalkay oo guri baan ku wada noolayn markaa saasay jirtay dhibaatooyinkaad u gaarsi kule imika xamse laba qof oo walaala weli aad isku dheer baatiyey dhibaatooyinka markaa la geliso aad baan uga wada hadalnay xamsena waa wallaahi wiil aad qalbi wanaagsan marka hore waxaan ka aaminsanaa qof xun qofka markaad aragtid waxaad ka aaminaysaa de qof xun laakiin markaad dhex geshideed sheeko iyo badanaa soomaalida waxaad tiraahdaa qofku waxas barataan markaad jiniin wada cuntaan markaad jid wada martaan xamse inta iskugu nimi gurigayga iman jiray waan isla qadaynaa walaalnimo adigu isku dheer baan noqonay dhibtiisana saasaan ku ogaaday aadna wuu cafiyey raalgelintii uu ka cafiyey aad iyo aad imika halkan aan fadhino kulley waa barnaamij taxanaayo oo imika xalqadii uu dambeeyey maraya horta halkan dadka hortooda ma ka odhan karta xamse waxaasaan kugu sameeyey mar labaad raalli ka haw waan odhan karaa xamse walaalkay qaali waxaa taa wiil aad u qalbi wanaagsan oo jacayl helay oo waxaan odhan karnaa dee jacayl dhabarka ka toogtay uu ka tamay iga raal noqo walaal qaali dhibtaan kuu geystay maxkamad baan kula galay dhagaxaan baa kugu dhuftay hooyadaaban aad u celownay inkastoon hooyadii aad saaxiib imika u nahay waqtigan suuqa haddaan isku aragnaan isma dhaafno markaa xamse 100% ay iga raali ahaado dabakaas ugu dambeyntii farduusay anigu kaaga mahad celinayna martiqaadkan aad noo timi iyo barnaamijka fiican aad noo siisay jacaylkan xamse iyo hoodo ma is odhan kartaa inuu bahalkaasi rajuu leeyahay oo laga dabategi karaa ama lagu gangaari karaa ma kula muuqdaa mid hirgelaya wallaahi walaal haddii hortu inantu dhankeeda waan arkay oo saaxiib noo noqon inana waa dareemaysaa dee inaan marka ku waranto laakiin weligay ma arag qof sidaa qalbigiisu waa adeegaya anagu haddaan dumar nahay qalbigayga wuu jilicsan yahay maanta xitaa qofka aan jacayl aan dee naga samaysan uu naga samaysan karayaa qofka kudhaa waan ku jecelahay waxaa laga yaabaa haddaan nahay dumar in qalbigaygu aad u qaboobo markaa wallaahi hoodo ma filayo inay jacayl xamse ka asmacdo soo noqdo waxaasoo laakiin hawluu sameynaya xamse maxay ka ahay والله هرت ميركيس متوجن ما أنا كان يمكن كل قصة يكون سلامة يكون ساقرة يكون ضدك حسنايا قل تل دقي سو متوجن قف صعدان بها انتظن ها معنين ها تعال بيك هاي تعال ولي جي ساسنا ولي جي معرك بنكوري
وان مقلي ترون لكن تعال كيو دبا waa xamse wana nakra imka dad xaq wax badan ka fahansantaado الله هذا إن كستو أن هاي دمر قلبي قاعد يجلسين هاي مركها كاس qisadan imkaan duubay noo qaybiyada hore ma la socotay ها ولا سعودي waxyaabaha uu xamse ka hadlayo inta badan maadaama la socotay bal ka waran maxaa dadka dib geyn kartaa sideed waa run maxaa sideed xamse ku daray maxaa والله أنت أو شيء قبل ودب waa sheeko واي أنا جوري ولا شيء مرة داينا كبحين قصتي كبرها يو ما أردنا يوابين أنا ورك والله سعودة يو حبا تي في جنا وان كداودا يوتيوب كبا قصدا والله سعودة مركها كاس هذا من ولا la soco xilli aan fogeyn qaybteena sideedaad